dhinacayga bidixna uu taagan yahay taliyaha hoggaanka nabadgelyada waddooyinka, midigtana uu iga xigo taliya xigeenka qaybta nabadgelyada waddooyinka. rabaa inaan halkan kala hadlo ummadda Soomaaliyeed. waxaan galabtay idaacadaha caalamiga ah ee dalka ka howlgala ay sii daayeen warar ay ka qaadeen dad Soomaaliyeed oo ka cabanaya shil ka dhacay Afgooy iyo Xamar dhexdooda shalay ceelasha agteeda, ceelasha biyaha ee Xamar, shil ka dhacay oo gaadiid kolonyo ah oo ay AMISOM leedahay ay ku dileen 3 marxuum oo magacyadooda la kala yiraahdo Alifle Cabdishakuur Bootaan Cabdulle oo daraawiishta ka tirsan, Cabdulqaadir Xuseen Cali oo guutada 2 ururka 5 horinta 5 ee xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, iyo mootowade Daxmar Jaylaani Abuukar Cabdi oo hooyadii leeyahay Muslimo Qaasim Cabdiraxmaan oo ku dhashay Afgooy. shilkaasi wuxuu u dhacay sida soo socota. dadkii aan idaacadaha caalamiga la hadlay waxay sheegeen in aan arrintooda qaranka Soomaaliyeed waxba ka qabanin, dhibaatana ay tirsanayaan, carruurtoodii oo meydihina weli ay bannaanka yaallaan. sidaa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayaa in shalay saacaddu markay ahayd 14 iyo daqiiqado yar oo la jira uu shilkaasi dhacay, oo uu baabuur Kasper ah oo ah kuwa gaashaaman ee ciidamada AMISOM uu shilkaas ka mas'uul ahaa. taargadiisa baabuurkaas waxay ahayd 3660, waxaana waday Alifle ama 2 Alifle Wimbaale Tiwaahile. shilkaas ciidanka booliisku marka uu dhacay, mootadaas sidaasi qabsatay waxaa daba joogtay mooto kale oo ay rag booliisii wataan, kuwaasoo cayriyey lana hadlay rugaha kontaroolada booliiska ee ka horeeya meesha loo yaqaano Lafoole iyo Afgooy. ciidan baa la hadlay, waxaa ku soo baxay daraawiishtii booliiska ee Afgooy. waxaa lagu qabtay meel laamiga ah oo ay marayeen intaanay gaarin Afgooy. waxay sheegeen shilku inuu dhacay, waxay la cararayeen ay ahayd in reaction lagu sameeyo ama ruduudul ficli oo dad caraysan ay waxyeelaan. waxaa watay ciidankaas oo madax u ahaa gaashaanla sare SK Kutesa oo ah brigade-ka 27 ee ciidanka AMISOM ninka madaxda u ah. booliiskii Afgooy ka yimid, kuwii deganaa ceelasha biyaha, kuwa deganaa meesha loo yaqaan Lafoole, kulligii kuwii cayrsanayay waxay isugu yimaadeen meeshii lagu joojiyey. goobta shilka waxaa yimid ciidan taraafika ah oo ka socday saldhigga booliiska Afgooy. waxay arkeen shilka dhacay, waxayna geliyeen buugga dacwadaha ee OP-ga saldhigga Afgooy lambarkiisa 230. dadkii waxaa noqday magacyadoodii iyo ciddii waxyeeshayba halkaasay ku rikood gareeyeen.